xilli inta badan dagaal beeleedyo ay ka taagan yihiin deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan isla markaana ay ka dhashaan dagaaladaasi khasaare kala duwan iyadoona dadka deegaanka isku hayaan aanooyin qabiil iyo dhul daaqsimeed sida ay sheegeen dadka deegaanka waxa ay soo taraya mas'uuliyiinta ka hadlaysa dagaal beeleedkaasi ka taagan deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan isla markaana sheegay in loo baahan yahay in la dhaxgalo dadka isku laynaya deegaanadaasi madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa wuxuu ka hadlay dagaal beeleedkaasi isagoona ku eedeeyay madaxda maamulka Hirshabelle inay ka gaabiyeen sidii loo dhaxgali lahaa dadka walaalaha ah ee isku dhameynaya deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan wuxuuna sidoo kale sheegay in madaxda maamulka Hirshabelle xilligan ayaga ay isku mashquulsan yihiin taasina aan loo baahnayn sida uu hadalka u dhigay والله كل aniga dhinaca wuxuu ahaa Hirshabelle marka aan ka warramo runtii aad iyo aad u dhaliilaya waxa waaye in ay waxyaabo hoose oo maamulkoodii ku saabsan iyo sida uu shaqeynayaan inay ku mashquulsan yihiin dadkii ummadda aysan ku maqnayn inaysan wax baaqo aan anigu maqlayna dabcan hadda waa jiri karaan laakiin ma aanan maqal wax baaqa oo ka soo yeeray madaxdii mas'uuliyiinta halka wuxuu ahaa joogto ee weliba beledweyne dhexdeedii hadda wuxuu ahaa yani arrimaha lagu murashay iyo wax laga hadlayo ay yihiin yani wuxuu ahaa wax loo baahnaa inuu wuxuu ahaa ka jiro oo wuxuu ahaa yani in hadii xisaab iyo dhaqaale waaye lacag baabuuro iyo wax laga qaado waaye waxaasoo wax maamul iyo madaxdiisa iyo madaxweyne iyo gudoomiye gobol iyo isku qabtaan iyo maaha leh hadda waxay meesha ku muujinaysaa yani inay mas'uuliyad darrata waxaa dagaal beeleedyo inta badan ay ku soo laabteen deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan isla markaana la sheegay in dagaalkaasi ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay